السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaynu barnaamijkeena kaga hadlaynaa saddexdii markab ee dunida ugu waaweynaa kuwaasi oo ku qaraqmay ama ku baaba'ay badaha waaweyn. Lusitania markabkan waxaa laga lahaa dalka Ingiriiska. waxa uu ahaa markab aad u weyn kaasi oo dhererkiisu gaadhayo 239 mitir. halwadeennada ka shaqeynayay markabkani waxay ahaayeen 850 qof. haddaba markabkani ayaa ku baaba'ay dagaalkii koobaad ee caalamka kadib markii ay ciidamada Jarmalku qarxiyeen isagoo ka yimid dalka Mareykanka kuna sii wajahan dalka Ireland. kaalinta labaad waxa galay markabkii Britannic. waxa uu degay markabkani 22 November 1916 ilaa iyo hadda taariikhyahanadu si toos ah uma ogaan sababta ka dambeysay degitaankiisa, waxaana ku dhintay 30 qof iyadoo ay intii kale badbaadiyeen ciidamada Jarmalka. haddaba sanadkii 2000 waxaa laga soo saaray filim ka hadlaya sheekada filimka. markabkii Titanic waxa uu ka mid ahaa maraakiibtii ugu waaweynaa ee ku qarqoomay ama ku baaba'ay badaha waaweyn. 1912 waxa uu markabkani safarkiisii ugu horreeyay kaga baxay dalka Ingiriiska isagoo ku wajahan magaalada New York. markabka Titanic waxa uu ahaa markab aad u weyn isla markaana maray tijaabooyin aad u badan iyadoo ay injineeradii xilligaasi ay aaminsanaayeen in aanu degi karin markabkani. haddaba mushkiladda dhacday ayaa ahayd inuu markabkani duqeeyo jabal ku yaala badda hoosteeda isla markaana biyihii ay si fudud ugu soo gudbaan markabka gudihiisa. isagoo muddo 3 saacadood wax ku dhow markabku uu sii degayay hoosna u sii socday waxaa markabkani ku dhintay tiro gaadhaysa 1517 qof iyadoo aanay saareen markabka laashash ku filan oo lagu badbaadiyo dadka. waana sababta keentay in halkaasi ku halaagsamaan dad aad u fara badan.